بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا ودا naga dhageysanaysa ay ku soo dhawaadaha qodobada wararka ugu doorka roole. Mudanayaasha golaha guurtida Somaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay doodii ay ka lahaayeen xaaladda caafimaad ee guud ahaan dalka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo helinaya agaasimaha guud ee wasaaraddaasi arrimaha gudaha Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa kulan la qaatay wakiilka xafiiska horumarinta qaramada midoobay ee UNDP. agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeenta Maxamuud Suldaan Aadan Yuusuf ayaa furay kulan ku saabsan waaxda dhiska ee wasaaraddu ay ku soo bandhigaysay waxqabadkeedii sanadka dhamaanaya ee 2023 isla markaasina lagu diyaarinayay qorshaha hawlqabadka ee sanadka soo socda ee 2024. laba qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhimatay aroortii maanta oo xadaha weerar ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen xero ku taalaha Dulkram taasi oo noqonaysa duqeyntii hidaanta galbeed ee la haysto muddo 5 saacadood gudahooda. wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in ciidamada gargaarka degdega ah ay isku dhaceen shalay oo sabti ahayd ciidamada Suudaan meel ka baxsan magaalada Waad Madaniya ee gobolka Al-Jazeera ee bartamaha dalkaasi. isla markaasina waxa ay sababtay halkaasi in dad fara badan ay ka barakacaan. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee Xamaas ayaa sheegay in xarakadu aanay sii deyn doonin maxaabiista Israa'iil marka laga reebo in ay joojiyaan dagaalka ayna aqbalaan shuruuda kooxda iska caabinta ee mujaahidiinta Xamaas. kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka rood. haatan dhageystayaal waxaad u diyaar garoodaan warkiyo fidsan. warka dalka. mudanayaasha golaha guurtida Somaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay doodii ay ka lahaayeen xaaladda caafimaadka ee guud ahaan dalka. fadhigii maanta ee golaha guurtida Somaliland oo shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahaasi mudane Siciid Jaamac Cali ayaa mudanayaasha golahaasi waxa ay soo gabagabeeyeen doodii ay ka lahaayeen xaaladda caafimaadka ee waddanka iyaga oo muddo 2 maalmood ah ku guda jiray doodaasi. mudanayaasha golaha guurtida Somaliland waxay doodaasi ay kaga warameen tayada daawooyinka waxtarkeeduna aad u liito iyada oo doodaasi ay ku xuseen mudanayaashu in meelaha la isugu keeno hay'adaha bixiya adeegyada caafimaadka oo ay ka mid yihiin komishanka mihnadayaasha caafimaadka iyo komishanka xakamaynta AIDS-ka iyo in qorshe loo sameeyo sidoo kale xanuunada soo noqnoqda. mudanayaasha golaha guurtida ayaa shirgudoonkooda ka dalbaday in loo yeedho wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo guddiga mihnadayaasha caafimaadka si mudanayaasha golahaasi waxay uga weydiiyaan howlaha ay qaranka u hayaan. waxaana mudanayaashu talo ahaan ay ku soo jeediyeen in mas'uuliyiinta hay'adda dhowrista iyo tayada Somaliland ay dardargelin ay ku sameeyso badeecadaha kala duwan ee ka soo degaya madarada dalka hubiyaana baaritaan ay ku sameeyaan arrimahaasi. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo helinaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa kulan la qaatay wakiilka xafiiska horumarinta qaramada midoobay ee UNDP Daniel Lawrence. kulankan ayaa lagaga hadlayay wada shaqaynta labada dhinac isla mashaariicda ay kala shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland. kulankan ayaa ku soo beegmay kuna soo dhamaaday isfaham iyo wada shaqayn buuxda. wakiilka waxa kulanka ku helinaya mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xafiiskaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeenta Maxamuud Suldaan Aadan Yuusuf ayaa furay kulan ay waaxda dhiska ee wasaaraddu ay ku soo bandhigaysay waxqabadkeeda sanadka dhamaanaya ee 2023 isla markaasina ay ku diyaarinaysay qorshaha hawlqabada ee sanadka soo socda 2024. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dhismaha ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeenta injineer Axmed Haybe Coljoog waxaana uu sharaxaad dheeraad ah uu ka bixiyay hawlqabadyada kala duwan ee wasaaraddu iyo waaxdaasi ay qabatay sanadkan dhamaanaya iyo qorshaha sanadka soo socda ee 2024 gaar ahaan dhismayaasha guud ee guud ahaan gobolada dalka ka socda. dhinaciisana agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeenta Maxamuud Suldaan Aadan Yuusuf ayaa waaxda dhiska ku bogaadiya hawlqabadyada ay soo bandhigtay isaga oo kula dardaarmay waaxyaha kala duwan ee wasaaraddu in sidii ballantu ahayd ay dadajiyaan wixii dhiman ee qorshaha sanadkan 2023 iyo diyaar garowga sanadka cusub ee 2024 shirka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay qaar ka mid ah waaxyaha kala duwan ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeenta kuwaasi oo goobjooga ka noqonaya
howlqabadka waaxda dhismaha ee wasaaraddaasi howlaha guud dhulka iyo guriyeenta. wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Cabdinaasir Maxamed Xasan Habbooni ayaa maanta tababarha ku saabsan wadaniyada iyo fahamka xuquuqda aasaasiga ah ee dastuurka u furay qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee caasimadda Hargeysa. tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland iyo hay'adda maxalliga ah ee lagu magacaabo Asal Organization. tababarkaasi ayaa dhalinyarada lagu barayaa wadaniyada iyo fahamka xuquuqda aasaasiga ah ee ay ku leeyihiin dalka. ugu horreynna wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Cabdinaasir Booni ayaa ardayda u sharaxay muhiimadda ay dhalinyarada ay u leedahay in ay faham buuxa ay ka haystaan wadaniyada, dastuurka iyo xeerarka dalka, taas oo kor u qaadaysa horumarinta iyo fahamka nidaamka dowladnimada iyo sidoo kale kala dambeynta. ugu dambeyntiina wasiir Cabdinaasir Booni ayaa dhalinyarada u ballan qaaday in ay ka wasaarad ahaan ay sii wadi doonaan qorshaha muwaadiniinta lagu barayo arrimaha dastuurka iyo wadaniyada si muwaadiniinta ay u bartaan xuquuqda ay dalkooda ay ku leeyihiin iyo ka iyaga dalka uu ku leeyahay. gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee Somaliland Khadar Jilaal jaamaca ayaa soo kormeeray koobka kubadda cagta ee ka socda garoonka Trelizka ee magaalada Hargeysa. Khadar Jilaal jaamaca oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland waxa uu ka warramay in koobkaasi kubadda cagta si habsami leh uga socdo garoonkaasi Trelizka ee magaalada Hargeysa ayna ka qayb qaadanayaan 24 kooxood oo ka dhisan degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa. dhinaca kalena Khadar Jilaal waxa uu ku dhiirigeliyay dhalinyarada tababarkaasi tartankaasi ka qayb qaadanaysa in ay ilaaliyaan shuruucda u dejisan ciyaarta dalka, isla markaasina waxa uu ballan qaaday dhalinyaradu in koobkaasi ay kala shaqeynayaan mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta. gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenku waxa uu mahad celiyay macallimiinta heerka labaad ee ka dhisan magaalada Hargeysa tartankaasi ay soo qaban qaabiyeen. warkaasina waxa uu ka soconayaa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland. markana dhageystayaal wararka dibadda. 2 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhimatay aroortii hore ee maanta waxaa weeraraha ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen xero ku taalaha Dulkaram, taasi oo noqonaysa duqeyntii hidaanta galbeed ee la haysto muddo 5 saacadood gudahood ah. warfidyenada ayaa sheegaya in diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa'iil ay beegsatay xaafadda lagu magacaabo Al-Mishiniyah ee xerada Nuur al-Shamis ee magaalada Dulkaram oo ay isku dhaceen diyaaradaha wax iska caabinta ee ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen xeradaasi. warfidyenada ayaa sheegaya in ay isku dhaca rabshadahani wata ay ka dhaceen wax yar kadib markii ciidamada badan oo Israa'iil ahi ay gudaha u galeen xeradaasi. waxaa kaloo sheegay in ciidamaha lagu xoojiyay 10 baabuur ah la soo dhoobay xerada Nuur al-Shamis, isagoo xusay in howlgallada qabsashadu ay ku badan yihiin xaafadda Al-Minshiya. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in ciidamada gargaarka degdega ah ay isku dhaceen shalay oo Sabti ahayd ciidamada Suudaan meel ka baxsan magaalada Hawaad Madiniyah ee gobolka Al-Jazeera ee bartamaha dalka. iska horimaadkaasi ayaa sababay kumanaan rayid ah in ay ka cararaan goobahaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan oo gacanta ku haya Hawaad Madiniyah ay tan iyo markii dagaalku u bilaabmay bartamihii bishii Abriil ay duqeymo xooggan oo cirka ah ay ka fuliyeen bariga magaalada si ay iskaga caabiyaan weerarada ay bilaabayaan ciidamada taageerada degdega ah Jimcihii. waxay intaa ay ku dareen in ciidamada gargaarka degdega ah ee uu hogaaminayo Maxamed Xamdaan Xameeti ay kaga jawaabeen madaafiic, waxaana la arkayay gurmadkooda oo dhaqdhaqaaqa dhanka deegaanka ah dagaalka halkaasi uu ka soconayo la arkayay. dadka deegaanka ayaa sheegay in maalmihii iyo toddobaadyadii la soo dhaafay lagu arkayay tuulooyinka dhanka waqooyiga iyo galbeedka ka xiga degmada Waad Madaniya ciidamo gurmad ah. xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha bani'aadantinimada ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay in dagaalku subaxnimadii Jimcihii ka dhacay xaafadaha ka tirsan degmada Waad Madani, kaas oo ay ku barakaceen in ka badan 86,000 oo qof oo in ka badan 500 oo kunna ay u qaxeen galbeedka Al-Jazeera ee bartamaha dalkaasi.
hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa iska caabinta xamaas ee kooxdaasi xamaas ayaa sheegay in xarakaduhu aanay sii dayn doonin maxaabiista israa'iil marka laga reebo in ay joojiyaan dagaalka ayna aqbalaan shuruudaha kooxda. mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beirut waxa uu xaqiijiyay in hogaamiyaha siyaasadda iyo militariga Israa'iil in ciidamadooda ay u dirayaan Gaza iyaga oo aanay ku guuleysan doonin. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha ciidamadiisuna aanay dan ka lahayn nolosha askartooda iyo saraakiishooda ayaa u sheegay. waxa uu taasi ku daray in warbixinta Israa'iil ee ku saabsan hadalka 3 maxbuus oo ciidamadooda ay muujinayso in ay ka sii gudbayaan fashilka Gaza waa sidoo hadalka u dhigay. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa kooxda Xamaas ayaa waxa uu soo bandhigay muuqaal muujinaya howlgallada duqeynta ah ee ciidamada Israa'iil ay ku dileen tiro maxaabiis ah oo ku sugnaa Gaza. waxaana uu ku celceliyay in dib ay u soo celinta maxaabiista Israa'iil ay nool yihiin isagoo intaasi ku daray in aan dhici doonin sii deynta maxaabiista Israa'iil ilaa ay la joojinaya gardarrada iyo in la galo heshiis gorgortan ah oo ku saabsan shuruudaha Xamaas ay wadato. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Falastiin ayaa xaqiijiyay shalay oo Sabti ahayd in dhibka Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta ee qabsatay tan iyo 1967 uu hadda yahay dambi dagaal. waxaana ay soo jeedisay in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalku ay soo saarto amar lagu soo xidhayo kuwa mas'uulka ka ah xalinta sharci darrada ah ee halkaasi iyo sidoo kale xiisadda halkaasi ka taagan. hadalkan ayaa ay ku sheegatay barteeda X iyada oo ka faaloonaysa wararka sheegaya in isbahaysiga ururka deegaameynta ay tahay mid sharci darra. hay-adda socdaalka adduunka ayaa maanta waxaad sheegatay in 60 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan haween iyo carruur ay ku qarraqmeen badda kadib markii doontii ay la socdeen ay kula degtay xeebaha Liibiya. hay-addu waxay bayaan ay soo saartay ay ku faahfaahisay madasha X in doonida shilka gashay ee ay ku dhinteen 60 qof ay la socdeen guud ahaanba 86 tahriibayaal ah waxaana ay tani timihii magaalada Zuwayriya ee dalka Liibiya arrintaasina ay ka dhacday iyagoo xusay in badda Mediterranean-ka ay weli ay ka mid tahay mid ka mid ah wadooyinka ugu khatarta badan ee socdaalka. dhinaca kale waxaa xusid mudan in bishii Oktoobar ee la soo dhaafay hay-adda caalamiga ah ee socdaalku ay sheegatay in 3 toddobaad kadib duufaantii Daniel ee burburisay Liibiya lagu qiyaasay 2,045 qof aynahdii 2,045 qof ay ku barakaceen daadada ka dhacay waqooyi bari ee Liibiya iyadoo oo wararku ay sheegayaan in qoysaska qaarkood ay dib ay ugu laabteen guryahoodii. xubin ka tirsan baarlamaanka Ireland oo xubin ka ah baarlamaanka Yurub ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee X waxa uu ku sheegay in cunaqabataynta dhanka Ruushka ay waxyeello u geysatay muwaadiniinta midowga Yurub. xubintan ka tirsan baarlamaanka Yurub ayaa waxa uu sheegay in cunaqabataynta midowga Yurub ee ka dhanka ah Ruushka ay ku guuldareysatay waxaana uu u geystay bulshada Yurub dhibaato weyn ay kala kulmeen arrintaasi. wadamada reer galbeedka ayaa wajahaya kor u kaca qiimaha tamarta iyo sidoo kale sare u kaca sixir bararka kadib markii cunaqabatayn lagu soo rogay xayiraadihii iyo dhammaan wixii kaga imanayay Yurub dhinaca Ruushka. Mareykanka iyo wadamada Yurub waxaa soo maray sixir barar heerkii ugu sarreysay muddo 10 sano ah. warki oo dhageystayaal aad kala socoteen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaarta wada naga dhageysanaysay waa naga intaasi. mar kale waxaan leenahay dhageystayaal duhur wacan oo wanaagsan dhinaca